ومقال عصب يوليبا موبايل عصب متكاس أو قديمي مشان صوب حي مالين دوي ولي قام مقشيتا ما في لي طبعا هذا صاحبيال مقال كان مانتا waxaynu kaga hadli doonaa mobilka cusub misana qadiimiga oo ay soo saartay muddo laga joogo hal week shirkadda Apple mobilkan waxa loo yaqaanaa iPhone SE sida caadada ahna shirkadda Apple waxa ay qabatay maamuus xafladeed ay ku shaacisay qalab dhowr ah ugu horeyntii waxay shaacisay new iPhone SE qalabka xiga ayaa This is the new even more amazing iPad Air. ugu dambeyntiina This is Mac Studio and Studio Display. waxaan filayaa inaan si sax ah u tiriyay waxayna sheegeen in dhammaan ashyaada ama qalabadu ahaayeen It's incredible. aan si sax ah u sheego haddaba waxay ahaayeen qalabadaasi dib u cusboonaysiin iyo wax ka bedelid qalabadii hore ee shirkadu soo saari jirtay marka laga reebo Mac Studio oo ah computer cajiib ah haddaad u malaynayso inaan khaldanahay kani waa iPhone SE waana telefoon cusub ay soo saartay shirkadu hal week ka hor waan ku khalday dabcan kan ayaa ah kani waxa uu soo baxay 2 sano ka hor halka kani ka soo baxay hal week ka hor haddaba ma kala saari kartaa labada mobile ma filayo dabcan aynu nimaadno haddaba telefoonkan iPhone SE soo dhawaada saaxiibayaal maxay si ku kala duwan yihiin labadan mobile ee horteena ka muuqda labadan telefoon waxay ku kala duwan yihiin laba shay midka koobaad ayaa ah A15 Bionic chip. A15 Bionic. A15 oo ah processor ama machine hadal badan dhaliyay kaas oo lagu suuq geynayo telefoonkan iPhone SE Apple ayaa sheegtay inuu processorkani ama machine-ka telefoonkani uu siinayo awood xooggan iyo battery fiican sidoo kale waxay ku suuq geynayaan telefoonkan ama uu kaga duwan yahay siday sheegeen telefoonka hore 5G to our most affordable oo iPhone. ah qaabka cusub ee isticmaalka daatada ama internetka kuna fududeynaya la degidda muuqaalada iyo faylasha culus si dhaqso badan waa haddii aad joogto meel leh ateenada iyo adeega 5G oonad u baahan tahay inaad filim taxane 10 siisana hal mar la degto sidii qof waalan balse aan kuu sheego hal mid oo xaqiiqo ah 5G ma aha sabab aad u eebsan karto telefoon ugana doorbidi karto telefoon kale waqtigan aynu ku jirno haatan balse sababaha aad u iibsan karto telefoonkan ayaa ah inuu leeyahay telefoonkan home button iyo inuu yahay mid ka mid ah iPhone-nada ugu jaban dhanka qiimaha oo telefoonkani qiimihiisu waa $430 oo kaliya uu jaban yahay soo maaha maya iPhone SE waxa uu leeyahay hal kamarad oo aad u yar cabirkeeduna uu gaarayo 12 megapixel mana laha telefoonkani wax kale tusaale ahaan macro ama ultra wide camera wuxuuse ku ogolaanayaa features badan processorka telefoonkan oo ah A15 Bionic tusaale ahaan qaadida sawirro iyo muuqaallo yara fiican iyo feature kale oo ah Smart HDR iyo Deep Fusion iyo waliba Portrait Mode oo ah mid ka mid ah featureska ugu muhiimsan dhanka kamarada haddaad se u baahan tahay features inta ka badan waxaan kugula talin lahaa inaad iibsato telefoonka iPhone 11 si aad u hesho features aad u fara badan haddaba telefoonkan iPhone SE screen-kiisu ma fiicna sababtoo ah telefoonkan waxa uu leeyahay screen aad u yar taas oo ah LCD ahna nooc muraayadeed oo aan aad haatan u fiicnayn marka la barbar dhigo noocyada kala duwan ee muraayadaha telefoonada sababtoo ah LCD waxay soo saartaa midabo yar iyo iftiin yar marka loo eego AMOLED amaba OLED oo ah iyaguna noocyo kale oo muraayadeed muraayada telefoonkan waxa ay leedahay dhinacyo aad u madow kuwaas oo ah waxa loo yaqaan notch sidoo kale telefoonkan waxa uu leeyahay refresh rate aad u hooseeya dhanka screen-ka iyo nit amaba iftiin shaashadeed aad u hooseeya marka loo barbar dhigo telefoonada haatan runtiina telefoonkan waxaynu oran karnaa waxa ka fiicanba dhanka design-ka amaba qaabkiisa telefoonkan aan isticmaalayo ee A10s-ka ah marka la eego dhanka qiimaha oo telefoonkan A10s-ka waxaan siistay $110 halka telefoonkani ka yahay lacag gaaraysa $430 dhanka design
iconkana waad arki kartaa baan furayaa halkan sare iyo halka hooseba balse taleefankan iPhone SE wuxuu kaga fiican yahay taleefankaygan ee taneska ah hal mid oo ah dhanka processorka ama mashiinka saaran taleefankan oo waxaynu odhan karnaa iPhone SE waa sidii gaadhi qadiimi ah oo soo baxay muddo hore balse la saaray mashiin Pro ah amaba cusub oo aad u awood badan sababtoo ah taleefankan waxa saaran A15 Bionic oo ah processorada ugu fiican taleefanada haatan siday sheegaan taleefankan iPhone SE ma aha mid loogu talagalay qof kaste adiyaaban tahay dabcan isug magaca taleefankan waa iPhone SE maxay u taagan tahay hadaba waxay u taagan tahay SE Special Edition oo macnaheedu ku noqonayo Soomaali nuskhada gaarka ah waxa isweydiin mudan uu u gaar yahay taleefankan mobilkan waxa uu gaar yahay dadka waaweyn ee jecel inay qaataan taleefan iska fiican iyo waliba daayirada waaweyn jecel inay u eebiyaan habar daalan sidoo kale waxa uu gaar yahay taleefankan qof aan haysan lacag ku filan laakiinse iska jecel inuu iibsado taleefan iPhone amaba jecel inuu ku jiro ecosystemka ama adoonsiga shirkadda Apple sidaa darteed haddaad tahay qof dhalinyaro ah oo raba mobile wax kasta ku ah leh kaamiro fiican screen weyn iyo features fara badan kulama taliyan inaad iibsato taleefankan iPhone SE sababtoo ah taleefankani ma laha intaas oo dhan waxaanse kugula talin lahaa inaad iibsato taleefanada kale iPhone tusaale ahaan iPhone 11 oo taleefankan ka yara qaalisan qiimo $80 lehna features aad u fara badan ama haddaad jeceshahay Android taleefanka Pixel 6 ee Google oo ah taleefan u dhow qiimo ahaan taleefankan iPhone SE lehna features aad u fara badan haddaad jeceshahayna dhanka processorska awoodda badan waxaan kuu sheegayaa Pixel 6 waxa uu leeyahay processorka cusub ee shirkadda Google ee loo yaqaano Tensor kaas oo leh awood aad u fara badan runtiina taleefankan Pixel 6 waxaynu odhan karnaa uu ka qurux badan yahay taleefankan iPhone SE dhanka designka boqolkiiba boqol waxaan odhan karaa Pixel 6 oo uu ka fiican yahay iPhone SE taasise waa fikirkayga shakhsiyadeed ugu dambeyntii taleefankan iPhone SE waxa uu leeyahay 4GB oo RAM 12 megapixel oo camera ah sidoo kalena waxa uu leeyahay screenka aadka u yar qiimaha taleefankanna waa $430 wayna adag tahay mararka qaar inaad ka ciyaarto giimamka sababtoo ah shaashadiisa ayaa aad u yar aynu gudubno qalabada kale ay soo saartay shirkaddu iPad Air si la mid ah SE iPad-kan ama taleefankan weyn waxa lagu suuq geynayaa ultra fast 5G to iPad Air wuxuuna la mid yahay iPad-kani iPad-adii hore balse waxa uu leeyahay M1 processor wuxuuna leeyahay kaamiro hore oo 12 megapixel ah iyo kaamiro selfie ah oo 12 megapixel ah labada kaamiradoodna waa ultra wide wuxuuna leeyahay feature ah auto size isagoo isticmaalaya 12 megapixel ee kaamiradeed runtiina wax badan ka odhan maayo sababtoo ah ma yihi qof isticmaala iPad-ada mid ka mid ah qalabada ugu xiisaha badan runtiina ka helay ee ay soo saartay shirkaddu oo ah kombiyuutar fiican oo leh processorka cusub ee M1 Ultra kaas oo qaboojinaya heerkulka kombiyuutarkan siinayana awood fara badan processorkan waxa weeyaan laba processor oo la isku daray ama laba mashiin oo la isku daray taas micnaheeduna waxa weeyaan waxa uu ka dhaqso badan yahay 8 jeer processorkii kan ka horeeyay ee ahaa M1 kombiyuutarkan ma aha mid aad u weyn marka loo eego kombiyuutarada dhigiisa sidoo kalena waxa ay shaacisay shirkaddu display ama shaashad aad ku isticmaali karto oo cabirka quality uu gaari karo 5K aynu nimaadno specificationska M1 Ultra RAM-kiisu waa 128GB halka GPU-giisu ka yahay 64 wuxuuna leeyahay maskax gaadhaysa 8TB waliba SSD ah waxaanan filayaa inuu yahay mid ka mid ah kombiyuutarska ugu fiican runtiina waxaan isku dayayaa inaan iibsado balse aan eego qiimaha monitorka 5K-ga ah iyo dhiska toobka ayaa noqonaya $4,000 M1 Ultra uma malaynayn iibsanna maayo ugu dambeyntii kugulama taliyan inaad iibsato dhammaan qalabadan sababtoo ah ugu horreyntii aad ay qaali u yihiin mar labaadkana manfacooga ayaa yar marka laga reebo Mac Studio waxaan ku soo afmeerayaa muuqaalkeenan maanta hal mid oo ah shirkadda Apple ma iibiso alaabo balse waxay iibisaa afkaar
haddii mudane ama marwa aad jeclaan lahayd mobile fiican inaad iibsato labadan muuqaal ku dhufo midka aad doonto maca salaama saaxiibayaal